maalintu waa Arbaca 30 bisha 3 2020 saacadu waa 3 galabnimo ee Geeska Afrika. Saamaynta cudurka coronavirus ayaa isbedel weyn ku sameeyay adduunka kaasoo aad ugu sii faafaya marka loo eego dalalka waqooyiga adduunka dhaca. Uguna horeeyo Mareykanku, cudurkan ayaa ka bilowday wadanka China ee dhaca bariga adduunka. Hase ahaatee, China ayaa ku jira kaalinta afraad ee dalalka uu saameeyay cudurka coronavirus. dadka uu cudurku ku dhacay ayaa lagu qiyaasay 869,605 qof, halka dadka uu dhimatay lagu qiyaasay iyagana 43,000 oo qof. dadka ka bogsaday ayaa iyagana lagu sheegay 172,104 oo qof. waxaynu sidoo kale eegi doonaa 7 dal ee cudurku sida ba'an u saameeyay. kaalinta koowaad ayaa waxaa ku jira United States, waxaana lagu qiyaasaa dadka uu ku dhacay 189,441 qof, halka dhimashadu ay tahay 4,074 qof. halka sidoo kale isagana lagu sheegay dadka ka bogsaday inay gaadhayaan 7,082 qof. Talyaaniga ayaa kaalinta labaad soo galay, dadka uu ku dhacayna waxaa lagu qiyaasayaa 105,792 qof, halka dadka u dhintay ay gaadhayaan 12,428 qof. dadka ka bogsaday ayaa isagana lagu sheegay 15,729 qof inay gaadhayaan. Spain ayaa kaalinta saddexaad soo gashay, dadka uu ku dhacayna waxaa lagu tilmaamay 102,136 qof, halka dadka u dhintay ay gaadhayaan 9,053 qof. dadka ka bogsaday ayaa lagu sheegay Spain inay gaadhayaan 22,647 qof. kaalinta afraad ayaa lagu xusay wadanka China oo ah meesha uu cudurku ka bilowday. dadka ku dhacay ayaa la sheegay inay gaadhayaan 81,000. dadka u dhintay ayaa waxa la sheegay inay gaadhayaan 3,300 qof, halka dadka ka bogsaday ay gaadhayaan 76,000 oo qof. Germany ayaa kaalinta shanaad lagu xusay, waxaana la sheegay inuu ku dhacay xanuunku 72,000 oo qof, halka ay u geeriyoodeen 800 oo qof. dadka ka bogsaday ayaa la sheegay Germany inay gaadhayaan 7,632 oo qof. Faransa ayaa kaalinta lixaad lagu xusay, waxaana la sheegay 52,000 oo qof inuu ku dhacay cudurku, una dhinteen 3,523 oo qof, halka ay ka bogsadeen 9,444 qof. Iiraan ayaa waxaa lagu xusay kaalinta toddobaad, iyadoo la sheegay inuu ku dhacay dad gaadhaya 44,606 qof, halka ay u dhinteen 2,889. dadka ka bogsaday ayaa la sheegay inay gaadhayaan 14,656 qof.